Philippe Coutinho. waa xirfadyahan u dhashay dalka Brazil wuxuu ku dhashay magaalada Rio de Janeiro ee xarunta dalka Brazil 12 Juun sanadkii 1992 wuxuu ka ciyaari karaa booska qadka dhexe ee weerarka garbaha iyo sidoo kale booska kubad sameeyaha caruurnimadiisii ilaa uu kasoo ifbaxo wuxuu u dheelayay kooxda Vasco da Gama Youth oo ka dhisan dalka Brazil sanadkii 2008 waxaa 4 milyan ku soo qaatay kooxda ka dhisan horyaalka Talyaaniga ee Inter Milan balse waxay amaah 2 sano dib ugu celisay isla kooxdiisii hore halkaas oo uu ku noqday xidig muhiim ah oo indhaha caalamka xaday mar qura bilow fiican umaysan ahayn Coutinho horyaalka Talyaaniga sanadkiisii ugu horeeyay wax saameyn ah kumuusan yeelan xidigani kooxdiisa Inter Milan oo xilligaasi ahayd horyaalka Yurub waxaana joogay xidiga waaweyn oo ka magac weyn Philippe Coutinho balse xidigan ayaa 2 sano kadib wuxuu mar labaad lagu diray ama wuxuuna aaday kooxda Isbaanyool ee ka dhisan horyaalka dalka Spain bishii January sanadkii 2013 wuxuu u wareegay kooxda kubadda cagta Liverpool aduun lacageed gaarayo 8.5 milyan halkaas oo ku helay xidigani kalsooni buuxdo muddo yarna ku hantay qaluubta jamaahiirta Reds Coutinho ayaa saameyn muuqato ku lahaaday weerarka kooxda Liverpool waxaana uu jabiyay rikoorkii uu hore u haystay xidiga isku dalka yihiin Juninho kaasoo ahaa xidiga ugu goolasha badan xidigaha ka soo jeeda Brazil ee ka xamaashada Premier League wuxuuna ku hayay 29 gool sidoo kale xidigan ayaa ku caan baxay dhalitaanka goolasha quruxda badan fursadaha goolasha iyo laadadka xorka ah iyadoo intaas u dheer tahay darbadaha laga soo rido meel ka baxsan xerada ganaaxa kooxaha waaweyn ayaa isku dayay in dheemankani kala baxaan faraqa kooxda Liverpool walow taasi uu hor istaagay macalinka kooxda imika hayo macalin Klopp xilligan la joogo Coutinho wuxuu u muuqdaa inuu helay xeen libaxyo oo ku weliso weerarka kooxda Liverpool waa wiilasha ka soo jeedo qaaradda Afrika Mohamed Salah Sadio Mane iyo marwaxada reer England Adam Lallana Roberto Firmino iyo Daniel Sturridge taas oo ka saacideyso inuu ka yaraado culeyskii faraha badnaa balse wuxuu u muuqdaa mid mar walba dusha saaranayo mas'uuliyadda kooxdiisa taasi waa sababta uu u helay malaayiin taageero ah oo taabato kubadda cagta xilligan la joogo waa xidiga labaad ee ugu fiican xulka Brazil marka laga soo tago Neymar waxaa sidaas yiri boqorka kubadda cagta Pele oo ka hadlayay horumarka uu sameynayo xidigan sidoo kale Ronaldinho ayaa Coutinho u muujiyay kalsooni ah inuu wax walba ku qaban karo inta uu joogo garoonka Anfield Road barnaamijka taariikh maanta waa naga intaas oo aan ku soo qaadanay taariikhda xidiga Liverpool Philippe Coutinho tan iyo intaan kulmi doono waa barnaamij soo saaraha Cabdinuur Maxamed Cabdulle oo idin leh sidaas iyo amaana Allah